السلام عليكم أصحابتي kusoo dhawaada barnaamijkan hal daqiiqo maanta waxaan ka hadlaynaa Cyprus ama Qubrus sida taqaanidba Jamhuuriyadda Qubrus waa jasiirad dhacda badda Mediterranean-ka wadamada u dhow ee xuduud jasiiradan leedahayna waa Turkiga, Lubnaan, Suuriya, Falastiin iyo Masar badguud waxaa lagu qiyaasaa 9,251 kilomitir square waxaana caasimad u ah magaalada Nicosia tirada dadka waxaa lagu qiyaasaa 1,207,000 oo qofood diinta ugu badan Kiristaanka waa Kirishtanka waxaana ku xiga diinta Islaamka luqadaha rasmigana waa Greek iyo Af-Turkiga jasiiradda Qubrus waa jasiiradda saddexaad ugu weyn uguna dadka badan ee ku taala badda Mediterranean-ka dalkan waxa uu qaybsan yahay laba qaybood oo kala ah Qubrusta Koonfureed oo u badan dad Greek Christian ah iyo Qubrusta Waqooyi oo u badan dad Turki Muslimiin ah waxaana xusid mudan in Qubrusta Waqooyi ay tahay dawlad iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanideeda caasimadda dalkan ee Nicosia waxay dad ku noolaayeen 2,500 oo sanadood sidoo kale caasimaddan waa caasimadda kaliya ee loo kala qaybiyey laba xukuumadood oo kala ah Waqooyi iyo Koonfur barfuumkii ugu duqsanaa ama ugu waqtiga dheeraa ee shaaca laga qaado waxaa laga helay dalkan waxaana la helay sanadii 2007 waxaana soo helay cilmi-baarayaal Talyaani ah dalkan wuxuu xornimada ka qaatay Ingiriiska sanadii 1960kii furaha wicitaanka dalkan waa $357 lacagta dalkan laga isticmaalana waa Euro-ga